السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور دي أبا عندك كم هاد علينا سودوين تديرهم قرينا جوي مرقاتك ده عاد بدو ما هتسنتين سلام شرفات بعد السلام لما برشة شرفت له ماشي سقوطي من ما ضحى إنتي ماشي جوكتي من دقفر بمنسب كده نكون موصي وحوالي لهم الله ما كان حرم ده حدين نقطة جرح حدين نقطة دمري هذين نقطة عروري وين هذين نقطة ومدن عن الله كلا حرم واحد خروج بدن رنتين لكن سيدا ليش يا جماعة أنا جو حوالي وحلا يوشيا قدام وحناهم بقول ربنا بقولنا هنا كهرباء أو أهور مرنت اللي يرادا أفكا قرالك يا أخرسك أنت صار مرك أنا يرنا عندي دول مرة إن شاء الله تعالى اللي يرى لوجو بالله بورت اللي يرى يته يا اللي يرى يا كلا أنت ماشي فدنا اللي يرى واحد بودا إن لو كفصدي سيدك ده لو كفصدي وايو وحل يري إلا كنت حصعت الدنيا رد بيستعجل نبي يدي رسول الله دي لسوت الجين النبي جيني يقول عليه الصلاة والسلام النبي محمد هذا عسير السنة يسرع لنا إسلام كوا كبحث كتاب كذي اسمه أمر إذا كتاه أفرت الوجه مركلوني بعالم كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي قالي يا سود وهذا يوتيوب كيني جوديني إذا كوحتين دتكي ساكن تلو دلميو هايا وحلو دلميو هايا بوفر بندقة ووقتا قبل كبراندر كالس كارك أنت أبوانا قالية قرالة قالية ضد المسؤولين يا أنا صعبة يقصود وهذا khudbadaha caalamiga ah dalay bad tababarano meel laga soo bilaabay ilaa madax ilaa mijar lagu geeyay hadda isku kiin darmadhiba ku qabtay isku dar maya hay aad baan idin wada salaamaya dhamaantiin waan haddaan nahay madbacadda fast sale waan hambalyeynaa barnaamijkan quruxda badan bandhiga buugta banaadir oo markii labaad la qabanayo madbacaddu waxay samaysay qaybta ama agabka daabacadda ayay ka taageertay bandhigan oo ay ku maalgelisay qolaba waxa ay awoodo ayay bandhiga u qabanaysay dhalinyaro ayaa si isgooda ula shaqeynaya dadaa taageeray annagu marka waxaan qabsanay dhanka daabacadda maadaama aan nahay madbacad weyn iyo daabacad madbacaddani waa madbacad ka mid ah madbacadaha ka howlgala magaalada muqdisho kuwooda ugu waaweyn wax walba markii laga sheekeynayo ama wax qabad aan sheeganayso inaad sheegto kaliya kuguma filna mararka qaarkood marqaati waxaa kuu noqonaya magaalada marka aad marto marqaatigan waa magaalada mar rabo inaad idiin sharxo inaan koobo daabanaco inaan koofiyado magacyo ku qorno waxaasi waa istaanteenna madbacaddu qof walba waxay kusoo dhaweynaysaa gacmo furan oo adeegyo daabacadeed oo tayada u baahan marqaatigeenna iyo xaysiinteenna waxaa noo ah oo iska cad boorarka aan samaynay haddii aan lahayn doolaago iyo kuwa meel walba ku dhegan fasisayn waxay samaynaysaa isbedel aad iyo aad u weyn kaas oo laga dareemayo adeegyada daabacadeed ay samayso waxaa haddana lasoo wadaa qalab waaweyn oo u diyaar garoobaya inuu la jaan qaado sanadka dhalanaya hadduu ilaahay yiraahdo iyo bandhigan kolka labaad uu qabsamo siduu u qurxoonaan lahaa sheekhaalow daqiiqadeed hal ma dhammaanayso waxaan rabaa inaan shacbur yar maadaama uu yiri buugta anoo madbacad ka socda in waddanada ugu yara aguhan aad iyo aad suugaanta kale caadiga kayd baan u dhiganaya laakiin shacbur baan kaga qayb qaadanaya madadaala ahaan ah shacbur anigu baan jeclahay tira markaan anigu markaan akrinay xataa waa ku qiirooda inaan ku qiirooto inaan iska rajaynaya iska bulaan ahay markaa wuxuu yiri markuu gabay jacbura ruuxta shabuuqay kari waayey ee doodaana tagay baan anigu laalay xariggii aniga isxilqaamay ma jira ciidan iyo diray dhegeysta saaxiibayaal waa daldalayaa ruuxda iska buu abaa seexday keligiisa naag la-aan nimay hayso oo daalay baan ahay anna goobistiidan badsho waa isbognahay nin walba oo qiiroonaya idaa gacan nin walba gabdhaha tuura uu carab yiraahdaa nin walba gabdhaha tuura uu carab yiraahdaa anna taan ka helay
waa yartoo waa caruur weliya 58 bay jirtaa birana sii dheere buuciraha sanadka ugu horeysa gabar nuucaas abwaanku waa iskaabulaha weyn sanadkan waa rajeynayna inuu ka gudbo hambalyaynu leenahay teexdiisa fast design waxay qayb ka tahay bandhigan cajaa'ibta badan ee bandhiga buugta banaadir kuman malaayiin ayaan uga mahadnaqaynaa ka qaybgalkooda waxaa markana jeclahay gaarsi annagana waxaan dhahnay dhalinyaro 40 xagee u dhaafta daraasaadkii la sameeyeyna waxay dhigayaan dhimashada dalkan Soomaaliyeed 44 rag iyo dumar ku kala dhintaan goormay marka talinayaan goormay wax qabanayaan ma 4 sano maxaa ku qabsooma halka xabo 9 jirka arkin alla loo daayay reality-ga laga hadlayaa moogta daraasaadka marka la fiirinayo wax la fiirinaya ubadkiina 5 sano ku dhamaanaya dhalinyaradina markay soo koreen dad waaweyn ay noqdeen af Soomaaligeena tagaysa yaa dhalinyaro ah yaa qof weyn ah yaa waayeel ah jara noo kala ahaan jirta laakiin maanta wixii dhabaal xabaa laga dhigay dadkii waaweynaa waa la laqay qaarna dhalinyarada lagu daray qaarna waayeelka lagu daray waa la kala gooyay saas nolosha ma aha afkii luqadii bay halaynaysaa darajadii kala dambeyntii bay halaynaysaa xataa doorkii noloshay halaynaysaa waxaa kaloo loogu daray dhalinyarada waxaa la yidhi rag waa raggii hore hadalna waa intuu yeeray mentally yaa loo dilay marka bistoolada la qaatay waxaa la yidhi wax ka tahay ma laha dhalinyaro magaciina ilaa 40 xagga loo dhaafiyey kii weynaa iyo kii dhalinyarada ahaa la isku daray hal xabaa laga dhigay yaa talinaya marka yaa wax qabanaya haddiiba la yidhi adi horta waxba ma badihidba يا شنعت وجراي سدح يا أفر يا الحبة كل شيء هو شني تروح معي شو حبة لصارة باي باي فيلم فلاني بوك جعل عربا يا انت والله لو بدنا ويلا هذا وين buug galon filan كيف waxay buugaan qorto نلالي جعل nolol iyo jacayl aan leeyahay هذا وين هذا iska وين bulada wuxuu samaynayo هذا وين wallahi iska bulada waxay اسكابل جورك قصص طريق iska bulada ha noolaato اه وعدي وين soo dhawaada naadiga aqoonsiyaasha xamar naadiga aqoonsiyaasha xamar hada jeer abu taagan yahay garab istaago qoraayaasha Soomaaliyeed jiilka jecel inay buugaagta qoraan naadiga aqoonsiyaasha xamar idin haya waxaan buugaaga buuga gardaadka qoray abwaan shirmaan gacan iyo geeyar qoray abwaan shirmaan buugaag badan oo idin haya naadiga aqoonsiyaasha xamar kamid ah qaran iyo wada qoray qoraa Yusuf Umar Nuur soo dhawaada naadiga